madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi intii aanu ka soo anbabixin gobolka Sool magaalada madaxdiisa Laascaanood waxa uu kulan isxogoreysi la qaatay madaxda dhaqanka culimo diinta aqoon-yahanka dhalinyarada isimada iyo labeenta gobolka Sool waxaana kulanka lagu lafaguray xaaladda guud ee nabadgelyo iyo horumar ee gobolka Sool mashaariicda ka socda iyo baahiyaha gobolka ka jira iyo qorshaha dejinta horumarka deegaanada gobolka Sool hoos yimaada iyo sidii xukuumadda Soomaaliland ay u labalaabi lahayd adeegyada bini'aadanimo iyo arrimo bulsho ee ay gobolkan ka fuliso ismada dhaqanka aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Sool ayaa iska daba maray ka waranka xaaladda guud ee gobolka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in wax lagala qabto iyagoo ballan qaaday inay garab istaagi doonaan xukuumadda talada Soomaaliland haysa ee uu hogaamiyo madaxweyne Biixi waxa weeye waa wax qabad weyn waa koow dugsigii Kuweytiga ahaa ee halka laga dhagax dhigay in maanta adiguna aad kaalintaadii markii horena adiguna amar ku soo bixisay in dugsigaas waa ognahay kii burcana mandheeda ama isniinta la bilaabaya sida warar ku hayne isagana waxa weeye inaad hadalka ku darsato biyaha weyn biyuhuna waa laf dhabarta weeye sida ay ganacsadaha uga sheekeeyay iyadana waxa weeye in aad culays weyn xukuumaddu way saartay wasiirka biyuhuna waa joogay wax laga qabto qodobka kale saddexaad caafimaadka waxa la qiray isbitaalka Laascaanood inuu yahay isbitaalka ugu weyn Soomaaliland taa waa la qiray waxa ka dhimana waxa weeye dadka kama dhaqaatiir yarin reer ahaane waa anaga dhexdeeda weeye laakiin wixii taa laga qaban karo laga qabto mudane madaxweyne waxaan loo baahannahay nabad iyo horumar labadaas aan loo baahannahay marka u horeysa waxaan leenahay gobolkan amni ku filan ha loo sameeyo khaasatan boolis hanan kara amnigiisa aad iyo aad waxaan madaxweyne u codsaynaa inaad awoodda nala saarto awoodda saarto nabadgelyada iyo horumarka gobolka waxba qabad baanu anagu rabnaa soo dhaweyn iyo sharaf baanu rabnaa inaanu kirdhid ku canqaadanaanu rabnaa adna inaad kirdhid ku canqaadatid baanu rabnaa insha Allah gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano ka tirsan golayaasha sharci dejinta Soomaaliland ayaa ka waramay muhiimadda uu kulankan dhex maray madaxweynaha Soomaaliland iyo waxgaradka gobolka Sool uu leeyahay horumarka gobolkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku dheeraaday sida xukuumaddiisu ay ugu dhagan nugushahay wax u qabashada gobolka Sool waxaanu ballan qaaday inuu wax weyn ka qaban doono adeegyada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo guud ahaanba horumarka gobolka Sool biyaha waxbarashada caafimaadka wadooyinka intaba wixii tamarteena ah ee dhaqaale aynu helnay inaanu idiin dadaalo gobolada kale idinka dadaalo waa naga go'aan waxaan rabnaa kaliya la soo hubsano qodobka biyaha in badan baa la raadiyey laguma soo guulaysan maanta waxa gacanta ku haya sanduuqa la yidhahdo SSDF oo lacag badan haya waxaana qorsho inuu isagu daraasada sameeyo sanad waday maamulaya xogeeyo dheeraad baa ka baxay waxa taala wadiga dirsay lacag tirada haya biyalka yeelan wada samee halaga warsugo duqeyda iyo waxgaradka jooga waa toon waa dadam qaday isku mid baynu nahay bilaa ilaahay ba iyaga qabuulka soo si aan ka warsugo shirka wax ka doona uu karo bixiba waa ka laga dhawaajiyay oo leeyahay itiraafka Soomaaliyeed gudaheeda laga dooro waa maqbuula waana ogol ilaa 17 sano Soomaaliland hayna waa sheegay